Culumowdiinka ismaamulka Wajeer ayaa maanta shir iskugu yeeray dhammaan siyaasiyiinta dowlad goboleedka Wajeer kuwa hadda xilka hayo oo u weyn yahay barasabka Wajeer Mudane Axmed Cali Mukhtaar Weerar iyo kuwa u loolamaya kursiyada kala duwan. Shirkaasi oo ugu horeyn ku saabsan waqaf lacag loo ururinayo iyo culimada oo sheegtay in siyaasiyiinta ay nabadda ka shaqeeyaan xilligan siyaasadda ah. Hadday kelma waxoogaa meel kale naga soo gaartay Facebook iyo wax soo kala yaan cudurdaar ka sameynay. Cudurdaarka waxaan ka sameynay waxay ahayd kelimadaas inay noo dhahneen raallina ka aheen wax noocuna manayeen aheen wax ama anaga bulsho taabanaya ama qof taabanaya qof mas'uulaan haba sheegin inaan maarta raalli ku noqonayn marna. Dhanka kale siyaasiyiinta ayaa ballan qaaday in ay amniga ka shaqeyn doonaan ayna taageerayaan ra'yiga culimada iyo taageerida waqafkaasi oo hadda qorshihiisu uu weli bilaabanin. Waxaana looga yeeray inaan dhageysana go'aanka ka soo baxay culimada oo 4 maalin u joogeen inaan ku dhaqan inaan annaga haddaan nahay bulshadii reer Wajeer inaan go'aamadaas taageerna waxaan kala qaban karnaa kala qabanna. Culimada waxaan ka codsanaynaa sifa asmaamulku u hagaaga in madaxda iyo shacabkaba la hago oo inta saaka sheekha sheegay raadiyaalka iyo tulooyinka iyo dadka laga sheegay runtii maxaa yeelay ninka madaxda ah corruptionkiisa maxaa keena waxaas haynin inaas raadiyo dadku kala maslaxa maxaa keena shacab waxaas haynin ka doonaa mana dhihi karna shacabku waa kan kale hataa culimada ku jirta nin ana culimo oo iimaadan oo dhahay wax xaraan ah ma ku soo qaada oo ma ku siina adaha kugu ekaata ana waxaan isii hadaad ay ka imaadeen marka in situationka zaid laskiga fiiriyo 2023 insha Allah in lacag hasal ana dardaaran ko ma qaba dadka way oo tagayna ninka lacag qaba loo taga laakiin waxaan qabaa ummadda iyadana ajirka ah heshay حتى عدد كتوان كشلم بحناية لواتن كشلم بحناية إن لو بندقة ويجار كسب حيان وبرنامجنا نحن هجا جنة علماء إلهي بواجب مساري معايا لي قرآن كي إلهي كريم كسودجي يا قرب سارنتين وما حد كجرو صوص ما لكن عن أركها إلى كحشور الزين إلى حق هذا الشين دغنكي إيه أذي دغمتكي إيه علماء ولا كل كسلاهي maxay yeelay culimadii meeshii laga rabay yay dhinac u istaageen ila xaq ka hadashin warsaan ma ahan aad hadin meeshan waa qalad hadin shaqadii oo dhaqamada la wareegay marka waan la ogow xisaaban iga horeysa aniga waan sheegnay yaa laga rabo sama ya maxay yeelay had maanta waxaan garibay hadin aniga waan in sheegnay ilaa hortiisa aniga xisaabatina laakiin waa ka aamusteen النوع كانوا لو بحينا وحماها قصاري وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهي أد لبحدان وواحد إذا انهار الله هو وحقيقة إن مشاريع سيدنا وكله كاونت جاي العقب بس واحد دي يملها شرع دي يملها هذا بو ECDs كي education هبس كيرات العقد إن كل كاونت جواد كوريسان وملاينا حالة ده بقولك باللحدن ميامس بقولك بتدباتن وحنكو بحنا هنا ديم العقد اللي هي سو واحد عصوبا قبان كرنبو تدبدنا هذا لها محام وغدول لقبطي موقتها واحد قبان كرنبو مالها سوتو إذا بقولك باللحدن دينكو بحنا يسو وحي يرانا لها صدن وورد باجرانا ميد والبابا مسخشونا هالنقطة واحد كم وغدو واحد مغدول قبان كرتو مالها رونتي marka deemaha faraha badan way sameynaysaa laakiin ECDs ki jireen dhowr meelana ka dhisayna kalaasiya oo madarasooyin aan ku kordhinayna inkastoo codsiga noo imaado oo ay ahayd maalin hore mar aan aadnay north dhinacna anaadayna laba meel oo nooga imaado oo kale oo dhisayna sidaas oo kale wixii madaaris oo class iyo labana nafteeda ilaa hadda waa on ku dari karnaa laba sababtoo ay tahay ma wada dhamaanin programka sanadka ugu dambeyntina waxa muhiim ah in shakhsi walba uu xil ka saaran yahay ka shaqeynta amniga. Xasan Ayman, Telefishinka Alfa, Ismaamulka Wajeer.